السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال iyo marweyn daawadayaasha sharafta leh ee hawada sida tooska ah noogala socdo caawa waa habeen muhiim u ah dadka daneeya arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo waliba xulufadiisa waxaa ka socda doorashadii madaxweynaha dalkaasi hogaamin doona 4 sano ee soo socota xaaladda hadda lama qiyaasi karo oo daqiiqado yar kadib waxba isbedelaya doorashadanina waa ay ka xamaasad kulushahay doorashooyinkii hore marka loo eego arrimo badan awgeed waayo waxa ku tartamaya laba 80 jir oo kala metelaya jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo hirdan adagi ka dhaxeeyay muddooyinkii u dambeeyay haddaba waxa caawa khadka si toos ah ugu jira Jamaal Salmaan Farjar oo ku sugan magaalada Las Vegas isla markaana ah khabiir ka faalooda arrimaha siyaasadda ahna saxafi rogcadaaya marka hore Jamaal soo dhawow waxaadna nooga warantaa bal guud ahaan jawiga dalka iyo doorashooyinkii socday xaggee wax kala marayaan bismillaahi raxmaani raxiim maxamuud salmaan iyo suxufi marka hore baan ku salaamayaa anigoo ah Jamaal Farjar waxaan ku suganahay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada carigaasi Mareykanka waa doorashadii ugu adkeyd ee 100 sanadood inta la xasuusan yahay ama qarni ka dhacda carigan Mareykanka waxa ku tartamaya laba nin oo ka kala socda xilliga xisbiga jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga ah labaduba waxay ku dhow yihiin istitmaadkii sida adigu ba magacooday haddaba xilligan aynu ku jiro waa lagu kala baxay isteedada intii badnayd waxa harsan in ka yar sideedaba 5 state waa gobolka Georgia oo leh 16 cod oo loo yaqaan codkan electoralka loo yaqaan gobolka Nevada oo anigu aan ku noolahay oo 6 cod leh gobolka la yiraahdo North Carolina oo leh 15 cod Pennsylvania oo leh 20 cod iyo Arizona oo leh 20 cod hadda marka la xisaabiyo codadka electronka lagu kala baxayo oo looga baahan yahay qofka raba inuu dalka kale Mareykanka madaxweyne ka noqdo waa inuu helaa 270 cod hadda ninka la yiraahdo Joseph Biden ama Joe Biden qofka sida uu yaqaano waxa uu haystaa 264 cod halka uu Donald Joseph Trumpna uu ka haysto 214 cod natiijada lagu dhawaaqayo dhawaan waxa la sugayaa gobolka Georgia oo labadoodu aad isugu dhagan yihiin qof waliba wuxuu leeyahay 49% gobolka Nevada oo ay Las Vegas ugu mudan tahay ama ay ugu horeyso waxa ku horeeya ninka la yiraahdo Joe Biden oo haysta 49 cod halka uu Donald Trump ka haysta 48 cod North Carolina 49 cod iyo 50 cod baa laga kala haystaa waxa cod haysta Donald Trump Pennsylvania oo leh 20 electronic votes ah waxa uu Joe Biden haystaa 48 halka uu Donald Trump ka haysto 50 gobolka Arizona waxaba u dhowdahay inuu ku guuleystay ninka la yiraahdo Joe Biden sidaa daraadeed Joe Biden imika wuxuu haystaa 264 cod halka uu Trumpna ka haysto daqiiqadaha ama saacadaha soo socdana waxa la filayaa in cidda ku guuleysata 270 cod la sheegi doono inkasta oo aan codka kale lagu kala bixi doonin ilaa ay maxkamadda sare ama guddiga Congress-ka ama aqalka hoose ee loo yaqaan House-ka ay warcad ka soo saaraan waxaana la filayaa arrintaas inay dhacdo maalinta Khamiista ah oo anaga berri noogu beegan saacadaha gelinkooda dambe 12 duhurnimo wixii ka dambeeya madaxweyne Trump oo ah nin aad u adag hadda kor wuxuu sheegay inuusan aqbalayn natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada maantana dhowr jeer bartiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay inuu guuleystay arrimahaas waddanka looga arkaa su'aalaha aad weydiisay oo aan u malaynayaa inaad tahay qof aad moodo inuu aad ugu dhuun daloolo siyaasaddan ka socota carigan Mareykan haddaba waxa doorashadii ugu adkeyd ee soo marta muddo lagu tilmaamay qarni ama 100 sanadood ayaa dalka Mareykanka ka socota xalayto 12kii habeenimo
ayay soo xidhantay tartankii doorashada welise waxaa lagu jiraa tirintii. waxaa meeshan ku tartamaya laba nin oo in yar un kala weyn oo da-doodu ay dhaaftay 70-aadkii 80-aadkiina madaxa la galay. muddadii 4 sannadood ugu dambeysay waxaa waddankan madaxweyne ka ahaa oo si lama filaana ku soo baxay xilligii doorashadii 2016 ninka la yiraahdo Donald J.R. Trump. ninkaas wuxuu noqday madaxweynihii ugu qalafsanaa ee soo maray waddanka kan Mareykanka. waxa aad iyo aad u dhaawacay siyaasadii dibadeed ee waddanka kan, inkasta oo ay arrimaha gudaha ama localku 3 sannadood ugu horeeyay dhinaca dhaqaalaha ay hormareen, laakiin taana laftarkeeda ay sheeganayaan dadkii ka horeeyay ee President Barack Hussein Obama iyo Joe Biden oo madaxweyne ku xigeen oo ahaa oo imka ah ninka la tartamaya waddanka kani oo hadeerto isagu hoggaanka aad ugu horeeya. Trump waxaa la odhan karaa waa madaxweynihii ugu qalafsanaa ee Mareykanka soo mara. waxaa go'ay intii uu talada dalka hayay amaba xumaaday xiriirkii uu badi caalamka la lahaa dalka Mareykanku. Donald Trump waxa uu dhammaan soo afjaray ama uu ka baxay siyaasadihii uu Mareykanku ku hogaamin jiray wadamada dibadda sida bariga dhexe markaad eegto, Afrika markaad eegto, Asia fog markaad eegto, dhammaantood marka laga eegayo heshiiskii Iran ee nuclearka, heshiiskii ama wixii ay aadka uga soo horjeedeen North Korea oo aad iyo aad Trump lagu dhaleelo. waxaa lagu tilmaamay inuu tinjeersaday dhinaca Ruushka. waxaana aad siyaasadda bariga dhexe marka la eegayo dadku aad uga tilmaamaan inuu yahay qof u hoggaansan ama dhageysna fikradaha Netanyahu oo ah madaxweynaha Israa'iil ama ra'iisul wasaaraha Israa'iil ah. dhibaatooyinka uu waddanka kan u geystay xagga dibadda maaha wax la soo tilmaami karo. haddii uu Biden qabsado muxuu ka bedelayaa baad u malaynaysaa? Joe Biden oo ah siyaasi rugcadaaya oo muddo dhowr iyo 30 sannadood ku soo jiray siyaasadda waddanka Mareykanku, waxa uu aad u fahansan yahay sida ay Mareykanku u maamuli jireen dalalka dibadaha ah oo Mareykankani ah meesha ay dhaqaale ahaan ama asaasaan ama siyaasad ahaanba ay ku dhisan yihiin. inkasta oo doorashadu aad u adag tahay, haddana waxaa laga yaabaa saacadaha inugu soo foole inay go'aan ka gaadhaan statekan ku naanahay ee Nevada oo leh 6 cod oo ah 6 cod ee electoral vote la yiraahdo. baa go'aanka ugu dambeeya la yaabaa inuu gaadho saacadaha soo socda oo ah 6 cod. waa 6 cod ee kaliya ka dhiman ninka la yiraahdo Joe Biden oo isagu imka haysta 264 cod oo waxa la yiraahdo electoral vote la yiraahdo. 270 cod baa loogu baahan yahay. haddii uu ku guuleysto 60 cod wuxuu noqonayaa madaxweynaha 4 sannadood ee soo socda waddanka Mareykanka, inkastoo uu Donald Trump aanu marnaba aqbali doonin. oo xataa inta aan doorashada dhicin wuxuu ka hadlayay ama inaanu aqbali doonin. waa nin aad u dhaqma sida dictatorada, waxaanu aad u taageeraa dadka dictatorada oo dhan. marka la eego amiirada Sacuudiga, Dubai, ninka ka arrimiya Ruushka Vladimir Putin, ninka ka arrimiya Kuuriyada Waqooyi, dhammaantood aad buu u taageeraa. markaas marna lagama yaabo in si fudud ku aqbalo, laakiin waddanka kan Mareykanka oo dimuqraadiyadooda aad u ilaashada, ninka kani khalad badan wuxuu fahmay inay dadka caddaanka waddankan u tariyaan. waxaanu aad ugu hanweynaa inay dadka caddaanka xukunkooda dib ugu soo noqdaan oo ay waddanka Mareykanka maamulaan, laakiin uma muuqato wax marnaba ka suurtagelaya. goorma la filayaa in si toos ah natiijada loogu dhawaaqo oo la soo afjaro tirinta codadka gobollada qaar ee weli la sugayo? saacadaha soo socda waxaanu sugnaa waa jawaabtii doorashada mudada badan lagu soo hardamayay oo ah doorashadii ugu adkeyd muddo qarni ah ee waddanka ka soo marta in lagu kala baxo. waxayna gaari kartaa ilaa barito subaxdii oo annaga noo noqonaysa Khamiis. Jamal Farjar, Las Vegas, Nevada, United States. waad mahadsan tahay Jamal Salabaan Farjar oo ah khabiir ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka ayaa daawadayaal inooga warramayay xaaladda doorashada dalka Mareykanka iyo halka ay wax marayaan.